garsoorka iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan John waxaana si weyn u soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka degmada Baydhabo iyo gobolka Baay iyo xubno ka tirsan shaqaalaha ee wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo ururada bulshada qaybadeeda kala duwan waxaana soo dhaweynta loo sameeyay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qayb ka ah xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya safarkiisu ahaa mayduu kaga yimaaday degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool inta uu ku sugnaa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu ku guuleystay dhismaha maxkamadda sare ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool sidoo kale kulamo uu la sameeyay ururada bulshada qaybadeeda kala duwan iyo dhisida xubno ka shaqeyn doona dhismaha maxkamadda sare ee degmada Xudur intaas kadib wuxuu saxaafadda ugu warbixiyay safarkiisa iyo waxyaabaha uu ku qotan yahay iyo sidoo kale kulamada iyo imaansiisa oo ka imaaday degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waa kan wasiirka oo ka warbixinaya wadani daban gobol degmo mas'uuliintii matalaasi eeda aanan dhawaayna inaan kula shaqeeyeen jadwalkaas ujeedka meelanka baanana ma haytay inuu kormeer guud ka soo bina cadaaladda iyo garsoorka adeegyadii meel ku jiraan isayin baaha oo daban eed aan weyn ku jirtay meel oo kumid ah in xabsigii qayb ku dhisanayna anima isla jarnay taliyaha asluubta ee Koonfur Galbeed may kala jaray oo una aragnay in maxkamadooda dhisanayna oo walba uu qabsanayna dabaan dadaalkii una bani oo ka aadanay in maxkamado iyo lagu shaqeey xabsiga qaybaha ku qabanay maxkamadoogii hadhiga dhignay oo maamulka degmada kaaladaana mayna laha ka dhagax dhigay amarka madaxweynaha oo hay in isilqaan la ka dhisa maxkamadaasay oo dawladda Koonfur Galbeedna ku qayb gala shacab weynaha ka dhaqan magaalada Xudurna ku qayb galaan daban maamulka degmada iyo gobolka Safayl ee fikirkaas aan dhawaayeen oo ka saabsan isilqaanka mayna ballan qaadana iyo qayb ku jeysay doonaan may kale kulamo la waaldanay ururada bulshada oo dhalinyarada iyo haweenka ay kumid yihiin oo markii dambana guddi uu ku magacaabnay iyo maamulka degmada gobolka Iskaaladana guddi ku magacaabnay ururada bulshada oo ka kooban ilaa 9 xubnood guddigaas ay shaqadii hal wareegeen mayna bilaabo doonanaha mardhow dhismagii oo maxkamadii baahidan ka weynayti xabsiga qayb may dhistay hay'adda IOM qaybtii dhisanayti xogaa yar may jirtay xogaa farsamo xumo kula hadalnay oo meel roogno kula hadalnay in dib lan hagaajiyay qaybtan dhasanayna hay'adii markii meelan ka weerni iyo wal qabadaan ya ballan qaadayona guud ahaan gobolka xaaladiis abni isku faylahayti khaasatan degmada Xudur waa boqolkiiba amaan ku jari may jaray laakiin shaqooyin oo magaalada banaan ku dhiyayaan qoladii nabadiidka wadaan oo haka barakayaan shacab weynigi oo ka dhaqanay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos ku yahay degmada Xudur oo shalay yanka dambeeyay una ka booqanay xarumo oo matalaan wasaaradooda oo meel ku maqanay dabcan oo wakiilku ku haynay markuu meel saanay ma aranay baahi badan daban gudoomiyaha degmada may kaalintiis u qaaday iyo gobolkaba in weeran hay'adooda meel deganay amaraan in oo jawaab rasmi ah oo degdeg ah biyaan Cabdullaahi Maxamuud Abdullahi Afaan telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Baydhabo